السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة للهانتين بقلنتي وعن أولاك سميل كستوات كتشوكتان دعفها عالمك halkan waa timacdan news channel oo aan ku soo gudbino waruuxi ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Daawada fadlan haddii aad daawanayso muuqaalkan subscribe noo saar, video haddii aad ka heshaan like saar, sidoo kale share basuug gala abintooda kale wixii tala ahna doogu reeb commentiga hoose. mahadsan. qodobadan maanta idin haynana waxa kamid ah jilaaga caanka ah ee filmaanta Hindiga ah Shahrukh Khan ayaa walaac ka muujiyay filim uu sameeyay kashanti Afrikaan ah oo ku guuleystay quruxda sanadkan galbada ee 2019 sidoo kale waxaanu xog idin ka haynaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Mohamed Morsi. jilaaga caanka ah ee aflaamta Hindiga Shahrukh Khan oo inta badan looga bartay aflaam xiiso badan oo guuleystay sumcad badanna uu ku helay ayaa ka hadlay arrin uu sheegay in ay ku keentay walaac uusan horey u arag. Shahrukh Khan oo dhawaan dalka Ingiriiska lagu guddoonsiiyay shahaado sharafeed ayaa filimkii ugu dambeeyay ee uu sameeyay waxa uu ahaa filim loogu magac daray Zero, kaas oo aan noqonin sidii la filayay. maruu ku sugnaa dalka Shiinaha ayaa Shahrukh Khan wuxuu sheegay in filimkaasi aysan jeclaysan dadka oo uu noqday filim guul daraystay walaacna ku abuuray isaga. waxa uu dalka Shiinaha u tagay si uu suuq hor leh uga raadiyo filimka Zero oo ku fashilmay gudaha dalka Hindiya. guul daradan ayaa filim waa ku noqotay jilaaga maadaama uu hore u soo bandhigi jiray aflaam xiiso leh oo dhaqaale badan uu ka sameeyay. dabcan waxa laga yaabaa in aan sameeyay filim aan sheekadiisa la jeclaysanin. waxaan ka walaacsanahay inuu suuq heli doono dalka Shiinaha, balse waxaan rajaynayaa in shacabka Shiinuhu ka helaan, ayuu yiri Shahrukh Khan oo wareysi siinayay telefishinka dawladda Shiinaha. samaynta filimkan oo Shahrukh Khan sheegay inuu ku baxshay qarash badan ayaa waxa isku hawshay shirkadda Red Childs ee uu isagu leeyahay. waqti badan ayaanu galinay samaynta filimkan, aad ayaan ugu walwalay oo waxaan gaaray heer aan mar dambe dib u daawanin filimka. markaad filim 3 sano aad sameynaysay ay dadku iska diidaan aad ayaad uga murugoonaysaa, balse 3 bilood kadib ayaan dib u eegi doonaa, ayuu hadalkiisa raaciyay Shahrukh Khan. kashanti Afrikaan ah oo asalkeedu ka soo jeedo qaaradda Afrika ayaa loo aqoonsaday qalanjada ugu quruxda badan adduunka, taas oo ku guuleysatay xaflad loo qabtay maalintii Axadii oo ka dhacday magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka. 17 Juun 2019 waxa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Dr. Mohamed Morsi oo sida maamulka dalkaasi xaqiijiyay ku dhex dhintay gudaha maxkamadda dalka oo dacwad ka dhan ah loo horkeenay. Dr. Mohamed Morsi ayaa madaxweynaha dalka Masar loo doortay 18 bilood ka hor kacdoonkii shacabka dalkaas ee talada lagaga tuuray maamulkii madaxweyne Mubarak. laakiin waxaa inqilaabay madaxweynaha imika ka taliya dalka Masar General Abdel Fattah Sisi oo xabsiga u taxaabay eedo tiro badanna dusha u saaray. waxa aanu tan iyo markii la afgambiyay ku jiray xabsi si adag loo ilaaliyo. militariga ka taliya dalka Masar ayaa diiday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo sababta dhimashadiisa sababtay, waxaana habeen madow ku aasan xabaalaha ee magaalada Qaahira oo cid ka qayb gashay aaskiisa loo diiday. intaa waxa ku qodobadaan idin haynay maanta. tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waxaan idin tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.